halkan horta waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay nabad iyo nabadgelyo ku jiida aynu ka faa'iideysan waxaynu nahay maanta ana fursad ka faa'iideysanaya dad faqiir ah oo hadana ku dul nool dul taajira saakay tahay ma labaad ciidka wallahi doo barwaaqo iyo bashbash baa lagu jira wadankuna uu raaxaysanaya oo leexaysanaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض وضيال كسر دواد برامج كني سلامها ساب تي في برامج كدا وضيال سلامها وحاودين كقيمنا يا برتمها مقالة هرجيسة ددوينها مقالة هرجيسة يندا وضيال سلام عيدة ما شاء الله سودو ولالكي وحن كلها عيد مبارك ما أنت هالكنا نسكو قبلناي برامج كسلامها عيدة هالكيات كسلامة سودو عيد مبارك نورة عاديات ما ستة كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم حساب تيفينا عاديات بانو سلام يا شرو شوق بان ليه halkan walaal waxaan ka salaamayaa ugu horeyn hooyaday xabiiba oo Xuseen aw Nuur oo aan aad iyo aad u jecelahay aabahay Maxamed Cabdi Nuur inta waxa ay soo raacay walaashay Khadra Maxamed Cabdi Nuur walaalkay Mustafa Maxamed Cabdi Nuur Cabdi Fataax Ayaale iyo dhammaan familygayga iyo ehelkayga iyo intii magaca iyo muuqayga garanaysa iyo dhammaan shacbi weynaha Soomaaliland ummadda Soomaaliyeed ummadda Islaamka ah ayaan walaal aad iyo aad u salaamayaa waxaan leeyahay sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo nimco iyo inagoo intan ka sii kornay oo wanaagsan allah ay nagu sameeyo walaal nuur leeyahay aniguna walaalkay aniga adigaan ku leeyahay ciid mubaarak walaalkay ciid mubaarak iyo dalkan ka salaamaysa adigoo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Cabdiraxmaan Muuse xaga waxaan ka salaamayaa hooyaday iyo aabbahay baan xaga ka salaamayaa ciid mubaarak baan leeyahay all the muslim dhamaantiin waan salaamayaa aniguna adigaan ku leeyahay ciid mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliland meel kasta joogto hambalyo iyo barwaaqo ayaan leeyahay madaxweynaha cusub qabsaday iyo reereynta Ilaahay inuu ugu dhameeyay ciid mubaarak anta waxaan ku dhii ayaan leeyahay aniguna adigaan ku leeyahay ciid mubaarak walaalkay ciid mubaarak aad iyo aad baan kuugu soo dhaweynayaa barnaamijka salaamaha Saab TV halka yaad ka salaamaysa adigoo magacaaga ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Ismaaciil Saciid waxaan ka salaamayaa dhammaan familygayga iyo ehelada iyo asxaabtayda ayaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa oo la wadaagaya munaasabadda ciid al-adha aniguna adiga ayaan ku leeyahay ciid mubaarak walaalka ilaahay ciidan ciideeda ha nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo soo dhawow halkaad ka salaamaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamay marka hore ummadda muslimka meel kasta adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr inta haddii aan ka tago waxaan kale halkan ka salaamayaa reerkaygii iyo carruurtaydii iyo aabbahay iyo dhammaan inta muuqayga iyo magacaygaba garanaysa waxaan leeyahay ilaahay sanadkiisa ciidda aynagu gaarsiiyo inagoo caafimaad qabna ilaahay dalka haynoo barakeeyo ilaahay dawladda haynoo barakeeyo ilaahay dadka haynoo barakeeyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay inaga xijaabo wax alla wixii khalada ilaahay inaga xijaabo colaadaha iyo dhibaatada iyo abaaraha ilaahay intaba inuu inaga qabasho ilaahay ka baryaynaa ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ummadda muslimiin iyo Soomaaliland waan salaamaya soo dhawow barnaamijka ciida ee salaamaha Saab TV yaad halkan ka salaamaysaa adoo magacaaga ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay sanadka insha Allah ilaahay nagu gaarsiiyo ciid baraka leh waxaan ka salaamayaa kale halkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro saasan salaamayaa bismillaah waxaan ku leeyahay ciid mubaarak walaal ku soo dhawow barnaamijka salaamaha ciida xildhibaane soo dhawow baan ku leeyahay walaalaad baan ku salaamayaa waa mahadsan tahay ciid wanaagsan ciid mubaarak dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimka meel kasta joogaan magacaygu waa Cabdiqaadir Jaamac Xaamid xildhibaanadii hore golaha wakiilada asaasayaashii xisbigii hanaqaad watay markii dambena ku biiray waaberi markii waaberi meesha ka baxayna ku biiray kaax haddana kaax xubnaha kaax ka mida walaalle aad baa u mahadsan tahay dariiqan aan iskaga hornimi waxaan salaamayaa marka hore madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka guurtida iyo wakiilada dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kastay joogaan qurbaha iyo dibaddaba waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr dhammaantiin waa salaamantihiin sanadkiisa ilaahay caafimaad iyo cimri dheer ha nagu gaarsiiyo kolley inahaasaan ku soo ururinayaa aad baad u mahadsantahay haddaad su'aali weydiin kartidna xaq baad u leedahay
xildhibaan aad baan kaaga mahad celinayaa barnaamijkan waa salaamaha ciida siyaasadda iyo xagga uu ka madax bannaan yahay insha allahu tacaala aniguna si gaar ah waaba ka tegay markii hore xaasaskaygii iyo ubadkaygii iyo faamiliga kuwa qurbaha jooga iyo kuwa dibadda jooga dhammaantood waan salaamayaa waxaan leeyahay sanad ciid wanaagsan ciidan ciideeda nabad iyo caafimaad allah inagu gaarsiiyo adiguna waa mahadsantahay allah ku ilaaliyo allah ku xafido wabilaahi tawfiiq ana waxaan ku leeyahay sharaf iyo karaamo korkaaga ha ahaato adiga iyo xildhibaanada Somalilandba waxaan idin leeyahay sharaf idinka iyo xaasaskiinaba farxad barwaaqo iyo caruurtiinaba ku ciiday insha Allah tacaala xilalka aad wadanka u haysaana ilaahay idinku asturo ciid mubaarak walaalkay ku soo dhaw barnaamijka salaamaha saab TV ee ciida yadalka ka salaamasa magacaaga ku bilaabay walaal magacaygu Axmed Maxamuud Umar dhamaan waxaan ka salaamayaa hooyadii Cibaade Cabdi Cali oo joogta magaalada Berbera iyo walaaladay oo kala jooga Berbera iyo Burco waxaan kala salaamayaa dhammaan asxaabtayda qaaliga ah oo kala jooga dalka dibadiisa iyo gudihiisaba dhammaan waxaan leeyahay reer Somaliland iyo ummadda Islaamka ciid mubaarak aniguna waxaan ku leeyahay adiga ciid mubaarak walaalkay ku soo dhaw barnaamijka salaamaha ciida saab TV yaad halka ka salaamaysaa horta kulligiina waxaan ka salaamay halkan waxa Soomaaliya oo dhan iyo muslimka oo dhan maadaama ciidda muslimka oo dhan ka dhaxayso gaar ahaan waxaan ka salaamay hooyaday macaan Anisa Cabdi Ibrahim Yusuf Aais Ibni aabahay sidoo kale Maxamuud Muuse Jibriil walaaladay familkayga muslimiinta oo dhan insha Allah ilaahay waxaan ka baranayaa ciidan ciideeda xigta inuu saan nabadan iyo barwaaqadan iyo bashbashkan ugu gaarsiiyo sidoo kale halkan waxaan leeyahay muslimiinta uga soo jeedinayaa inay u duceeyaan walaaliheen Falastiin maadaama si fiican u yiidnay laakiin ayagoo dib iyo qarax iyo rafaad ay ku jiraan ciyaalkooda maalin kasta laga dilayo insha Allah marka qof kasto maanta daawanaya waxaan rajeynayaa inuu dadkaas caawin doono aniguna waxaan ku leeyahay ciid mubaarak baan ku leeyahay adiga iyo hooyada iyo aabba iyo dhammaan walaalada oo dhan ilaahayna waxaan ka baryaynaa dhulkeena qasa iyo maxay muslimiinta Falastiinba inuu ilaahay colaada uu nabad ugu bedelo cadawgana ilaahay uu ka qabto oo inuu wada duceyno waxaan ku leeyahay ciid mubaarak walaalkay ku soo dhaw barnaamijkii salaamaha iyo halkan ka salaamaysaa marka hore magacaaga ku bilow alxamdulillaah rabbil caalamiin horta ilaahay waa loo mahad celiyay والله magacaygu Khalid Maxamuud Muuse jooga magaalada Hargeysa saakay tahay malabaad ciidka wallahi dawaa barwaaqo iyo bashbash baa lagu jira wadankuna uu raaxaysanaya oo leexaysanaya waxaan hambalyo u dirayaa horta 6 madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland soo marintiin dhimatayna Allah u naxariisto inta noolna Allah intii xilka ka degtayna xilka Allah ku asturay midheysaan ku joognay inta saaranay madax Cabdiraxmaan Cirana Allah xilka ku asturo adiga Nuur Ismaaciilna waa ku salaamayaa aniguna waxaan ku leeyahay walaalkay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciideeda ha nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo assalaamu calaykum waxaan ku leeyahay ciid mubaarak adeero ku soo dhaw barnaamijka su'aalaha barnaamijka salaamaha ee saab TV ciida awgeed yaad halkan ka salaamaysaa adeero bismillaahir rahmaanir rahiim halkan horta waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay nabad iyo nabadgelyo ku ciida caafimaad ku ciida waxaan kaloo salaamayaa xukuumadda garweynka uu yahay Cabdiraxmaan Ciro waxaan kaloo aan salaamayaa shacbiga reer Somaliland meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay nabad iyo baraare ku ciida aniguna adigaan ku leeyahay nabad iyo maxay ahaydeen ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha iyo cid kasta oo shacabka Somaliland waxaan idin leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciideedii ha nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo waliba ubadkiinaba آمين آمين أنا نصدق كلام كله واحد كله حق الراعينا يا لما نعيدن كبيلسك يجنا وحنا هاي يجي ونوبت كوجا وحنا هاي ريره هو جبه هنا نبتقول يكو عيدان كانوا كعيدن كبيلسك كانوا كعيدن وجان كعيدن كبرمتك وجان كعيدن وحنا هاي نبتقول يا عفمت كعيدة تذكرنا أنا قدتكو أدي أين عيدن أنا عيدنا معها وايو أنا قدت كان أيام نبتقول ذي لنا وحويان عيد عيدان وانو عيدي وانو عيدنا مركا waxaan leenahay aad iyo aad baan salaamaya dhammaantay waxaan leeyahay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland anigoon kala qaadaynin iyaga madaxoodayna ku hurudnaa ilaahay cimriga caafimaadka caruurtooda xaasaskooda waxaan leeyahay cimriga iyo caafimaadka Allah u dheereeyo ilaahay xilka iyo
mas-uuliyadda ay hayaanna dhammaantood ilaahay ha ku asturo baan leeyahay ciid mubaarak inagoo faraxsan insha allahu tacaala ciidda dambena wada kulmi in sha allah sidoo kale walaalkay kusoo dhawow barnaamijka salaamaha hisaab t v magacaaga marka hore ku bilow yaad halkan ka salaamta magacayga waad maasantay waa xuseen xaaji nuur maxamuud waad maasantay adiga horta kugu hor salaamaya waan ku leeyahay ciid wanaagsan ciiduku mubaarak baan leeyahay waxaan leeyahay shacabweynaha somalilan dowladda iyo xukuumadda shicibba ciiduku mubaarak ciid mubaarak ciid alcaafiyaad leeyahay ilaahay baynu u mahadnaqaynaa marka u horraysa oo mahad oo dhan iskale inoo suurtageliyey inagoo caafimaad iyo miir iyo nabad qabna inoogu sumaynaynu soo gaadhna ciidul adxa tanteedii dad baa noolaa oo maanta aan tan soo gaadhin dadkaa waxaan leenahay ilaahu naxariis janno ka waraabi waalidintooda ilaahu naxariiso annagana nooga daba naxariiso inteenna ilaahay soo gaadhsiiye caafimaad iyo bashbashyo barwaaqi reereen ku ciidayna inuu ilaahay taateeda inagu sima inoogo nabad qabna caafimaad qabna calankeenna cawaale ee kelimatu laa ilaaha illallah rasuulullaah ku xarran tahayna inuu ilaahay korkaa haasiiyo taateeda nabadqab inagu simo calankeenna aanu ilaashanno dowladda iyo xukuumadda iyo shicibba aynu gacmooda jir samayno aynu wada shaqaysanno aynu maanta dhulkeenna aynu ka faa'iidaysanno waxaynu nahay maanta anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya dad faqiira oo haddana ku dul nool dhul taajira dhulkeennu waa taajir maanta waxaan u baahannahay in laga shaqaysiiyo kow wasaaradda beeraha oo maanta ay dhiirigeliso beeralayda oo dhulka la beero oo maanta marmarkan xitaa guryaha laga buuxiyey waxaa la samayn karaa maadaama uu qasabadu leeyahay biyana ay helayaan oona biyola'aani jirin marmarkii ar ka qaadaan ha beertaan maanta waxay u baahan lahayn hilib bay u dhaadhici lahayn xaafadu laakiin maanta wax kasta inaan u dhaadhacno ayay noqotay oo dharigeenna yari maanta uu badweyn wax ka soo maraya amba hawada soo maraya u shidan yahay waa dhulkeenna iyo khayraadkeenna oo digaaggeenna oo xoolaheenna waxeenna innagu aynu nidaamsanno aynu dhaqanno ceeb maaha war dadku hadduu isku tashado maanta waxbuu noqdaa haddayse isku tashan weyno waxaa laga yaabaaba inaynu gacmaha un hoorsannee ilaahayna ma badee waa dhulkeenna aynu u dhaqaaqno oo nin walba halkii loo diray dawladda uu qaabilsan yahay ha ka soo dhalaalo shacabkuna ha ku garab istaagaan hadday caafimaad tahay hadday ganacsi tahay ha la istaakuleeyo nimanka ilaahay wax siiyeyna dadka ka hooseeya waxaan leeyahay ha caawiyaan ha ka warhayaan innagu maanta aynu isku noqonna hagbad maadaama aanay tii sekada islaamku jirin bal haddaba innagu caqliyan iyo maskaxiyan aynu iscaawinno sidii berigii markaynu qaxnayba aynu isku caawin jirnay halkankii aynu caawin jirnay garaamka shanta galaana hooyadu qaadanayso ay galaan snamta u siin jirtay si aynu maanta dalkeenna aynu ku naaloonayno aynu helno oo haddaynaan taa hayn innagoo balag itaaliyare oo qaxoontiya ayay shanta galaan hooyadu galaan jaraysa waxaasoo la isu geynayay ciidanka la soo gaadhsiinayay waar maanta innagu waxaasoo dhimcay waxaasoo fooqay waxaasoo taajirina leh waar ilaahay intaynu ka yaabno caqliyan iyo maskaxiyan ilaa qalin baynu barannay iskuul baalaynu baray malcaamad jaamacad aqoontiinna haddii waxba soo kordhin weydo waa mid mushkilada waar dadka aqoontana ha la maqlo qofka cilmigala ha la maqlo culimmada ha la maqlo jaamiciga ha la maqlo waaraynu kala faa'iidaysanno qofka asxaabulcaqliga ee saxaabulfikirka ee saxaabul maanta garashada ah ee meel dheer wax ka arkaya waar ha loo istaago ha la maqlo waaraynu ismaqallo waar maanta waxaan guri cadow badan oo leenahay waar cadowga inaan isku jibin dadkan miidiyaha maalayacniga iyo maanta isku dirka iyo social miidiyahana 24 saacadood taaganna waar ha dhegaysanine wixii wanaagsan uu social media ka dhagaystay inoo dana ee dalkeena dadkeena u dana wixii aan dan iyo dal inuu jirin walaalaynu ka dheeraano barnaamijka daawadayaal inta waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii salaamaha hisaab TV waxaan idin leenahay dhammaantayo ciid mubaarak كل عام وأنتم بخير برامجك كمرة قروح بدن داوديال وحينو دادهين عباس صنعه انت برامج نوعا وكلا كل ما إن شاء الله تعالى وحنتكتجينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.